waxaan ku yidhi hadda ka hor ninku maskaxdu ka daalaa guriga banaanka markuu ka yimaado guriga wuxuu rabaa in uu ku nafiso eeg waa laba qof oo isweydaarsan runtii way isweydaarsan yihiin iyadu waxay rabtaa in ay ku nafiso hadalkii oo laga guro way cabudnayd maanta dhan sooma in laga guray rabtaa qofka ay isku fogaarinayso ama isku furfurayso waa adigii waa isagina uu daalan yahayba oo wuxuu u baahan yahay relax marka casharada waxaan ku darnaa saacadda iyo barka ugu horeysa walaashay ninkaaga markuu banaanka ka yimaado hal hadlina si fadhiga ha fadhiisto hanas kada inta markuu helo waxaad uga baahan tahay marka hadda maarka weydiiso maxaa yeelay wuxuu u baahan yahay process inuu kala dego maskaxdiisa ma qaadi karo hadal badan iyo canaan badan iyo qaylo rag qayli u turjumtaan hadalka gabadha markay hadlayso qayli u turjumaan maxay la qaylinaysaa maxay la war badan tahay way nacnac badan tahay madaxii bay ka qaaday qaarkood maxay sameeyaan marka raggu gabadhahan u sheegaya raggu guriga way ka soo dhaxaan ilaa inta daashid aad ka seexanaysa sariirta tagaysid guriga kugu soo hoynayn kala wuxuu leeyahay wixii ba ka horeeya buuqi baa ku hortaagan ha seexato hala kala dago marka waa dib moogta waa challenge waa taxaddi uu qofkani ka cararay labadaas inay isfahmaan marka waxaan kala meel yar oo kala jirta fadlan Abu Ahmed aan ku daro haweenku marka ay fikirayaan waxay rabtaa inay suuq aado ay soo adeegato waxa la yiraahdaa haweenku waxay u fikiraan allowed waxa maskaxdeeda ku jira banaanka soo saaraysa marka waxay ku leedahay suuqan aadaya waan soo adeegi oo waxa laga rabaa kan oo waxan oo dukaanka inaan tago wixii oo dhan kuma sheegaysa adiga lagiyada isku sheegaysa way haws maqashiinaysa adigana waxaad moodaysaa hadal waxaana hadal what's the point ma iska aado iska soo gadato iska soo noqoto maxa marka ninku waxa la yiri inside buu ka hadlaa naftiisa gabadhuna outside way soo saartaa fikirkeegan she think aloud baa la yiraahdaa ninkuna laakiin uu qarsadaa taasna xisaabta kuma jirto marka lagu darsado runtii markaan anay 10 ka ogaaday waa isku fiirsaday waxa la iga baahnayn baa maanta oo dhan daldalaya laakiin waxaan ogaaday inay abuuritaanka qofka ay kamid tahay ما شاء الله بارك الله فيك marka hadalkii yani gabdhuhu inay ogaadaan raggu in ay maskaxda ka daaliyeen Afrika laga soo hadlay ma yana halkan bay hay'ado badan baa la hadlay meeshan waad aragtay oo ciriiri dhaqaale jiro walwalkii dhaqaalaha haysta marka isaga laftigiisa pressure badan baa haysta ninka wuxuu u baahan yahay pressure ka laftigiisa in la wadaago marka waxaan siinaa dawo labadaba remedy baa la dhahaa dawada meel badan oo ku sheegay dadka qaar kood waxay yiraahdeen dhaqanka ka soo horjeeda rag odayaal ah baa waxay yiri isma yara keenayso salama qabsan karayso marka dhalinyarada baashaas ay ku fiican tahay laakiin iyaga dawadu tahay dawada soo baxay waan tijaabinaa anaga ما شاء الله dad kalena waan markaan u sheegnay anagu guriga joogna baa la sameeyay experiment gabadhu maanta dhan way soo joogtaa yani xaasku markaan ka wado waa taagantahay maanta dhan waa taagantahay صح shaqo haday caafimaad qabto haday uur leedahay hadii uurkaasi ama sagaal ha noqdo ama maaragtay intuu doon ha noqdo hadii ay caadadii leedahay intaba xaalad kasta ay ku jirto waa taagantahay iyo u taagantahay khidmadka صح haday ku khidmaynaysaa marka qofku markuu soo joogo ragga waxaan weydiiyay 8 saacadood markaad soo shaqaysaan ee aad taagan tihiin maxaa dareentay jirkiina halkee ugu xanuun badan dhabarkii ruuxa arba ilaahay ku wada arba ha meesha ku taagnayd waa maxay dhiigaagii oo dhan baa dhacay balanskaagii ha gabadhu marka waxay u baahan tahay inay fadhiisato waliba gabdhaha aan la joogin ee caruurta galigood qabsanaya waan u sheegnaa waxaan idinku iskar gareeyo oo isxanaaneeyo hooyadu way ilowdaa gabadhu way ilowdaa nafteeda odayga iyo ilmaha ku mashquulsan tahay way xanaanaysaa way yartahay inay iyadu isxanaanayso runtii iska fikirto ha waxa laga yaabaa hal hameen inay xasuusatay jirkeeda maaragtay qaarkood yani hameenkaana rag way ka dacwoodaan hameenka aqoonsi ka tagayso weeyaan waa soo wada ha marka waxaan oran lahaa marka gabadhu waxay u baahan tahay lugaha in massage loo sameeyo biyo kulul inta cagaha biyo diiran dadka khaliijka joogana dadka qaarkood baa la soo hadlay mugti dadka khaliijka joogana waxaan leeyahay biyo xoogaa yara qabow ila meeshii baa raran oo kulul cimiladii marka hadba cimilada aad joogtid ka dhaqaaq biyahaaga ha noqdaan kuwa diiran ama kuwa qabow lugihii in la gashado
oo markaa hadhowto waa inta 5 daqiiqo 10 daqiiqo gula jiraan markuu jirkii yara kala baxo ka soo saartid kareem iyo saliid loogu talagalay jira in lagu markaa lagu masaajeeyo oo lagu riixriixo ninku muxuu u baahan yahay madaxa in loogu masaajeeyo ama biyo yar oo qabo haduu khaliijka joogo markuu guriga soo galo banaanka ka yimaado ama meeshan qabow markuu guriga ka yimaado oo maartay tuwaal yar ama shukumaan yar oo diiran in madax marka waxaa jira machine yar oo loogu talagalay wajiga in lagu masaajeeyo dadka sameeyay nin oday oo waalid ah oo maartay saaxiib qoys ah wuxuu yidhi haddii sidaan la isugu samayn lahaa oo xaaskaygu saan igu samaynaya masaajka maba kala fogaaneen baasha barbaashan xageed ku haysay buu hadda waxaan dareemay ma malinaysiin buu وشيخ خدم أحمد محلادة هاي كبدي جورج شوكتي ولا جعر إنه باللوجو يري بيأكل الوجه لوجلي الوجه اللي رح ها وكرام الله مري ها دولة ذا كجرت وايو طنت هذا كجرت إني يكون دوودو ويكون عافي ما أدو وهذيك الحنانة دي بدواي ستريس بقى عقد ديبريشن بقى كل بو عريري قاعد كعبادة يسوع ويكون زيادة marka dawadana waxay ka caawini in waxa soo dhan ka kala degayaan waa caafimaad imaado ha ma sha Allah Sheikh Ahmed iyo wala hiba ma sha Allah barakallahu fiikum su'aalaha aadka u badan iyo doodaha ka yimaada habab marriage koorsada bixis waxa kamid ah inaad Sheikh Ahmed waliba aad tiri gabadhii la oran jiray hiblaayo oo inay hebel ahayd oo magaceeda laga carari jiray oo wadaadka 2 kiiloomitir ka dambeysay qurbaha markay timi inta xani hala yiraahdo oo macaan hala yiraahdo oo xabiib tale luuqad walba aad ku sheegtay jabaalis xitaa Allah ka dhigay marka arintan dadka qaarkood odaasha qaarkood oo la sheekaysta waxay leeyihiin baya waa dhaqan gaali ka soo jeeda arintaas qaar waxay waa istustus oo wax ma taqaanaa diinteena qabta ma aha horta in erayada la isticmaalo diintu sheekh maxay ka qabtaa ko sharxi talabaad erayadani ma leeyihiin wax Soomaaliya u dhigma la inagu luqadan waa Soomaali ma leenahay wax u dhigma erayadan oo ku bedelan karno فالشيخ قلت كمر فورما بسم الله الرحمن الرحيم أرد سؤال بلارن وسؤال كسوجي دخل عربته وحيليه كلمة دوسة سوكلا حبيبتي بقى كميدا أريد أي رنتي أي استعمالان دل كاستقولته جاينا تج مرايكن تج ماشي دون تأدو تج ereyayleeyihiin ay ku cabiri karaan ay ku sheegi karaan qofka ay jecel yihiin ereyadan honey iyo baby iyo waa ereyo ay iskula baxeen marka aan raadinay dabagalnay meesha ay ka timid ay asalkeediina waxa weeyaan tilmaamid aad tilmaamayso qof aad jeceshahay oo hadal macaan aad ku odhanayso qofkaaga marka in aad hadal macaan ku tiraahdo ilaahay quraanka wuxuu yiri waqulu lin-nasi husna waqulu lin-nasi ma zawjada iyo zawjka lin-nasi dadkoo dhan hadal wanaagsan ku dheh qofkaagii ku dhawaanay xaaskaagii ninkaagii ilmahaagii walaalka aabaha iyo hooyada yani ولذلك حديث ما قال معني بهي بينه شيء كلمة الطيبة صدقة كلمة وناكسن وصدقة أجر ما تخيلها ساس درهاد dadka ay dhib ku hayso waxa jira dadku marka ay dabcan da'an way ku xiran tahay dadka ay dhib ku hayso ee aan iyagu dhaqan u lahayn ee Soomaalida ah ee Mareykan iyo Australia iyo Yurub ku nool ee waaweyn ee waayeelka dib kuma haysan luqadoodii ay yaqaaneen inay ku hadlaan ku sheegaan yaana wax dib ku jirto ma aha haday dhibsadeen tan reer galbeedku ay leeyihiin iyaa ku qasbay aniga ma oranin wax aad adigu lahayn waa inaad qaadato shaarad lahayn de kuma yaana kuma dharginayo
kulayl iyo qabow midna kaama celinayo waxaagaa kule waxaasan ka hadalnay dhalinyarada halkan joogta ee ku korta luqadda ay ku hadlaan soomaaligiina ma yaqaanaan inta badan luqadda ay ku hadlaan waa luqadda ay la joogaan ama ingiriis ha noqoto ama carabi ha noqoto wixii ay iskula joogeen meesha ay joogeen ay ku wada hadlayeen iyadna ceeb ma aha inay isku yiraahdaan waxaa ceeba in la fahmi waayo waxaan odhan lahaa aniga marka innaga af soomaaliga waan leenahay waxaanse u baahannahay inta badan lama faafiyo lama baro dadka lama sheego lama hadalayo suugaantay aada uga buuxdaa suugaantan waxaa lainooga dhigay wax fool xun oo shaydaan uu leeyahay marka waxaan odhan lahaa runtii haddaan rabnoon jecel lahay luqadeenna in aan sii xajino innagaa la inaga rabaa in aan barno jiilkeena yaryar dhalinyarada reeraheenana aan ku odhanno oo aan ku odhanin baadiyihii sidii mararka qaarkood qarnigii maaragtay 18 19 noolaa tii ilmaha ii dhashay anigu waan kasoo horjeedaa taas qarniga 12 inaan idhaahdo tii ilmaha ii dhashay sax maaha kii ilmahan dhalay aw hadday tiraahdo qiimo uma lihi anigu de ha qalbi qaleel baa laga qaaday qalbi qaleel wey anigu haddaan wax yar ku darsado idinko iga raaliya waqtigana waa cararaya in runtii in abu ijaabo aniga axmed markaan is caroosnay in 20 sano ka hor runtii aan Yurub aan nimidnay kelmado yaroo iska dayibo iska naxariis lama is dhihi jirnay in marka dadku weyna la yaabi jireen runtii wiil baa marka wuxuu nagu yiri 4 bilood ayaa idin qabanaya waxaan ogahay 4 bilood kadib kelmadan isma dhihi doontaan waa idin ka dhamaan doontaa maba jirayso ku leeyahay ma garatay inta hore carooskii iyo farxadaas waa xiisaha buu yiri marka ilaahay raxmadiisa iyo martay nimcadiisa waxaanu ku soo gaarnay 20 sano inaan kelmadihii isnidhaahno marka waa dhowaan wiilkii dib isku aragnay wuxuu gacan baa idin taagay runtii weli ma sidii iskula hadashaan marka akhiyo kelmada wanaagsan waxba ka ratima dareen bay qofka gelinaysaa qofka dareenka markay ku abuurtana waxa kaaga imanay wax fiican marka adigu wax fiican gasho weeyaan ta kale dadkan la hadlayno odayaashan jaafkee qalalay ee maaragtay Afrika ka yimiday ee maskaxdoodii qufulay ee quluubtoodii qufulay anaka lama hadlayno waxaan la hadlaynaa iyo dumar la mid ah waxaan la hadlaynaa qof isbedel doonaya qof naxariis u baahan qof raba inuu qofkiisa naxariis gashado iyo dhalinyar dukan ku kortay oo is caroostay baan la hadlaynaa anaka dadkaan la hadlayno dadkaasina kelmadaha wanaagsan they knows sida loo yiraahdo marka intaasaan kusoo koobsan insha Allah ha lagu dadaalo walaal ha lagu dadaalo intaas iyo in ka badan baa la is yiraahdo